asalaamu calaykum mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeenii business english series cashirkii saddexaad waxaan kaga hadlaynaa time management and priorities maareynta waqtiga iyo kala horeysiinta shaqooyinkan ayaan kaga hadlaynaa. cashirkan wuxuu ka mid yahay cashiro english series business english series ah oo taxane ah oo free ah. haddii aad applicationkeena Waxkabaro academy soo download garaysatay qaybta hoose free english lesson taabo kadibna business english series taabo halkaas ayaa wax walba oo koorsada quseeyo ka heli doontaa 100% waa free. haddii nagu cusub tahay soo dhawow magacaygu waa Ustaad Maxamuud Axmed Xaaji maamulaha iyo macalinka Waxkabaro academy. Waxkabaro waa digital classroom aad si raaxa leh uga baran karayso luqadda Ingiriishka adigoo raacayo manhaj caalami ah. faahfaahintana isla applicationka iyo qaybta descriptionka ayaad ka helaysaa. Alright, phrase-keena ugu horeeya aan u galno marka. Let's circle back to that later. Let's circle back to that later. haddii luqadaadu intermediate iyo ka sare tahay waxay u badan tahay inaad ereygaani garanayso micnihiisa marka isku day inaad qaybta commentiga kusoo qorto. haddii aadan garanaynin ma aqaano aqoontay ka mid tahay waad baran doontaa ee videoga dhameyso. Let's circle back to that later micnaheedu waxa weeyaan arintani aan dib ugu soo laabano aan hadda hakino oo aan dib ugu soo laabano weeyaan. Is to suggest that a topic should be postponed until later. waxa weeyaan inaad soo jeedisid inaad topic laga hadlayay aad hakiso oo aad dib ugu soo laabato. Postponed waa hakin weeyaan. Postponed waa hakin. Until later oo aan dib ugu soo laabano weeyaan. aan dib ugu soo laabano arintaasi mar kale weeyaan Soomaaligeeda caadiga markaa fiirso. Su'aal aan gelino marka. We only have 10 minutes left, so let's circle back to this tomorrow. 10 daqiiqo oo kaliya ayaa inoo hartay arintani aan hadda hakino oo aan biri isugu soo laabano We only have 10 minutes left, so let's circle back to this tomorrow and biri usoo laabano. haddii applicationka ku dejisan yahay codadkani waad dhegaysan doontaa. anu gudubno jumladeeni labaad. We need to prioritize our tasks. haddii aan intermediate aan above tahay jumladani waxay u badan tahay inaad garanayso qaybta commentiga kusoo qor. haddii aadan garanaynin waxaan ku dhihi lahay ma aqaano aqoontay ka mid tahay fadlan baro insha Allah. micnaheedu waxa weeyaan aan kala horeysiino shaqooyinkeena siday u kala muhiimsan yihiin. Prioritize micnaheedu waxa weeyaan in wax la kala hormarsiyo siday u kala muhiimsan yihiin loo kala hormarsiyo weeyaan. To order tasks according to their importance or urgency. siday u kala muhiimsan yihiin in taskiska ama howlaha ku yaala aduu ka hormarsiin lahayd weeyaan. waa inaan kala hormarsiinaa shaqooyinkeena kala horeysiinta shaqooyinkeena weeyaan. maanta videogan aan duubayo priority number 1 ayuu u yahay xilli hore aroor hore ayaan duubayaa. I am prioritizing to record this video today. maanta ahmiyad gaar ayaan siinayaa videogani waan ugu soo hormarsiiyay. Alright, aan su'aal isla fiirina marka. We don't have enough time to complete everything. ma haysano waqti nagu filan oo aan wax walba ku qabanno. So let's prioritize our tasks. aan shaqadeena ahmiyada gaar u kala samaysano oo aan kala horeysiino siday u kala muhiimsan yihiin si aan kuwa ugu muhiimsan waqti ugu helno. We don't have enough time to complete everything. wax walba ma qaban karno waqti aan ku qabanno ma hayno sidaas daraadeed aan priorities u kala samaysano oo shaqadeena aan kala organize garaysano siday u kala muhiimsan yihiin u kala organize garaysano. waxaan filayaa inaad si fiican uga faa'iidaysatay. haddii aad isku dayi karto qaybta commentiga kusoo qor jumlo aan tan ahaynin oo adigoo isticmaalayo prioritize our tasks isticmaalayo qaybta commentiga kusoo qor. qaybta saddexaad ayaan u gudbaynaa. We're swamped right now. aad baan mashquul u nahay weeyaan. We're swamped right now. aad iyo aad ayaan mashquul u nahay. Swamped right now is to say that we are really busy and overwhelmed with work. aad iyo aad baan u mashquulsannahay. Overwhelmed with work waxa weeyaan shaqadii ayaa nagu badato. Overwhelmed markay waxa kaa bataan xadaaf ay kugu noqdaan oo aad kala qaadi weyso weeyaan. Overwhelmed wixii markay kaa bataan aad iyo aad ayaan u mashquulsannahay ama shaqadii ayaa nagu badato weeyaan. We've been swamped since the new course launched. aad iyo aad baan u mashquulsaneen kadib markii lasoo launch gareeyay koorsadii cusbeed. markii lasoo daayay ama lasoo launch gareeyay waa koorsadii cusbeed. We've been swamped since our new course launched.
launched waxa weeyaan markii wax lasoo fasaxo ama lasoo deeyo ama suuqa lasoo geliyo weeyaan launched. We've been swamped since the new course launched. Koorsadii cusbeed markii hawada soo gelinay aad iyo aad baan u mashquulnay. Aad iyo aad ayaan u mashquulnay. All right. Sorry, I'm tied up. Sorry, I'm tied up. qaybta commentiga isku day inaad ku soo qorto hadday luqadaadu intermediate iyo above ay tahay. Sorry, I'm tied up. aad iyo aad baan u mashquulsanahay. ma awoodo ama layma heli karo weeyaan inaan waqti ama ma awoodo inaan waqti ku siiyo ama layma heli karo weeyaan. I'm tied up. Is to say that you are busy and therefore unavailable. Ina waxaa sheegaysaa inaad mashquulsan tahay oo aan lagu heli karin. Unavailable inaan lagu heli karin weeyaan ama la heli karin. Shaygaasi lama heli karo ama laguma heli karo. Raalli iga ahow la ima heli karo. La ima heli karo waan mashquulsanahay. All right. Tusaale aan fiirin marka. I wish I could help you, but I'm tied up with the budget right now. Jeclaan lahay inaan ku caawiyo, inaan ku caawin karo, laakiin hadda waxaan ku mashquulsanahay budgetkii ayaan ku mashquulsanahay. I wish I could help you. Jeclaan lahay inaan ku caawin karo, but I'm tied up with the budget right now. Hadda waxaan ku mashquulsanahay budgetkii ayaan ku mashquulsanahay ama budgetka diyaarintiisii ayaa aad iyo mashquulisay. Alright, waxaan filayaa marka inaad codadka application ka dhageysan karayso. We need to think long term. We need to think long term. Waa inaan si aragti fog leh aan u fikirnaa. Waa inaan si aragti leh u fikirnaa, aragti fog. Long term waxa weeyaan waa aragtida fog weeyaan ama saameynta fog weeyaan. Sida uu shay mustaqbalka u saameynaya weeyaan. Alright, to emphasize the importance of considering future implications. Inaan ahmiyad gaara siiso, emphasize waxa weeyaan ahmiyad gaar inaad siiso weeyaan. To emphasize ama attention badan aad siiso, the importance of considering future implications. Sida uu mustaqbalka waxaana ay u saameynayaan inaad ka fikirto. Future implications waxa weeyaan saameynta mustaqbalka oo shay kugu yeelan kara weeyaan. Alright, waa inaan si fog u fikirnaa. Mustaqbalka aan ka fikirnaa, waa inaan aragti fog lahaanaa waxaas weeyaan. Publishing videos daily is good, but we need to think long term about our health. Inaan maalin walba video cusub soo publish garayno waa arrin fiican weeyaan, laakiin waa inaan ka fikirnaa mustaqbalka fog sida uu caafimaadkeena ay u saameynayso arrintaas. We need to think long term about our health. Caafimaadkeena siday u saameynayso mustaqbalka fog waa inaan ka fikirnaa. Waxaan filayaa inaad cashirkaasi si fiican uga faa'iidaysatay. Applicationka haddii aad soo gasho waxaa kugu jiro quiizyo ayaa kugu jiro 5 su'aalood oo lagu hubinayo inaad cashirkan si fiican u fahantay. Isku day inaad ka shaqeyso, mid walba jawaabtiisa saxda aad u doorto, kadibna aad check dhahdo, natiijo ayuu ku siinayaa. Haddii aad ku baasto waa kaasa, haddii aad ku dhacdayna wax weeyaan waad ku laaban doontaa. Haddii aad doonayso inaad luqadaada sare u qaaddo, waxaan kugu casuumayaa applicationkeena Waxkabaro Academy. Faahfaahintana applicationka dhexdiisa iyo qaybta commentiga ayaad ka heli doontaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.